munaasabad ballaaran oo taageero aad u tiro badan oo ku soo biiray xisbiga cadaaladda ee dalyaalka ee cud oo ka qabsoontay hotel Arda 252 ee magaalada Laascaanood waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta xisbiga cadaaladda ee dalyaalka ee cud oo ugu horeyn waxaa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah taageerayaasha ku soo biiray xisbiga cud dadkiina ku nool gobolada Sool Sanaag iyo Cayn arrinkaas waxa weeye xisbiyada kale waxba inoo hayaan kulmiye waxa inoo hayn wadani waxa inoo hayn xisbiga cud wuxuu inoo hayo waa maxay wuxuu inoo hayaa constitutionka Somaliland inaan wax ku yeelano hadaan hanay macnaha ku soo amba soo isaaga Cayn walada la siisay naasi dhalinyaro ahaan xisbiga kaliya wax laga weydiin xisbiga cud waxyaalaha uu ku caan baxayaan balse aad horay ku ogeedeen amba aad ku taqaanay kii aan ku ogeeyno imka aan leeyahay ku ogow dhalinyaro ahaan waa cadaalad naasi xisbiyada Somaliland ka jira dhalinyaro ahaan xisbiga kaliya wax laga weydiiyaa naasiina dhammaantii intiina maanta isugu wada timid mid kulmiye iyo waddan inta laga weydiinaya mare waa ilaahay maadima aan ducida kullay munaasabadan waxaa la isugu yimid sida inoo wada muuqata dhalinyarada taageeraha inaan ka asxaab ahaan anagu aan u muujino idinkuna aad u muujisaan sidoo kale farxad iyo hambalyo marti sharafka nagala soo qayb gashay ka asxaab ahaan markaan taabto anigoo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga daryaalka iyo cadaaladda u cid aad baan hawshan u sabood gareynaynaa waxaa jira tartan ay tartamayaan xisbiyada qaranka oo saddexda xisbi inagu waxaynu nahay xisbiga awad waxaa laynaga rabaa inaynu cududeena iyo awoodeena aynu u muujino xisbiga shir weynaha kale maanta isugu nimi aynu ku soo dhaweynay taageerayaasha faraha badan ee xisbiga ku soo biiray inaynu isaga faa'iideysano waxyaalo fara badan oo aynu kala qaadano iyanaga oo soo dhaweynayna xubnaha ku soo biiray maadaama aynu shir isugu nimi qof yar oo wasiir oo siyaasi ah la magacaabo caata kaasi meel kasta weyn oo ka jira maamulada Soomaaliya meel soo ka jira ma jiro Itoobiya ka jira Kenya ka jira Djibouti ka jira xitaa dalalka lagu qaxay bayna siiyay iska daa meel kale wasiir yar oo caata waxa weeye xisbigan waxaynu ka doonaynaa inaynu talada wadanka ka maamulno haddaynu ka arki weyno Soomaalilandnimadaynu ka tashanayno xisbiga ciid faahfaahin weyn ka siimayo qof walba uu ka dhareegsan yahay oo xisbiga kaliya ee meesha wax la yiraahdo ka duula ama ka dagaalama waxa la yiraahdo qabyaalada waxa la yiraahdo in dhalinyaradii ay sameeyso tahriib sameeyso inay sameeyso waxa la yiraahdo mukhadaraad ka dagaalama waa xisbiga kaliya connecting ka isku ah bulshada Soomaaliland isku xidhi kara waxa la yiraahdo xisbiga wicid maanta inaga ayay nagu xiran tahay inaynu soo saarno xisbiga wicid saynu ogsanahay injineer Faysal Cali Waraabe wuxuu ku dhawaaqay inuu siinayo gudoomiye madaxweyne ku-xigeenka xisbiga qof ka soo jeeda gobolada bari inaguna gobolada bari waa isku keen mid oran mayno reer Sool baa la siinayaa laakiin gobolada bari inaga waa isku keen mid sababtoo ah hadda Somaliland ilaa 1991kii madaxweyne ku-xigeenka caasimadii inta reer baa haysta inagu meel ay nagu shaqaysanay ma askar baynu noqonanaa taasi waa maya askar ma noqonayno xisbiga cadaaladda iyo daryaalka ee gudoomiyaha injineer Faysal Cali Waraabe uu yiri waxsiinayaa gobolada bari waliba uu sheegay gobolada Sool iyo Sanaag macnaha lubaantaa baa siinaya marka ay ku soo dhawaadaan isagana hadda waa diyaar ku soo socda diyaarada ila saaciyo lagu dhawaaqayo dowladda diyaarada markay taas noqoto haday doonaan ku dhac laakiin waxa uu ka qayb galay saamigii ay ku lahayn jiray lixdankii markii xornimada qaatay dee uu banaanka ka bilaabay waxa kaloo inta noo dheer magaalada diiwaangelin baa ka socota waxay madaxweyne kula soo bixi karaa ama aynu kula soo bixi karaa musharax dhalinyaro iyo haween iyo waayeel inta aynagoo kaarkeena qaadana hadda magaalada Laascaanood joogto kaarkii waa turay sameysay dadkii diiwaangelin qaataan waa hadow laandheera iyo laanga wax lagu kala noqdaa kaarka qofka kaarkaasta la dheera qaab badan waxa ku bari kama jecel qof musharax ayaa huwaaya waxay tahay yani wuxuu ku doortay qofkii Farxaan Maxamed STN magaalada Laascaanood